عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كسر دوادة شانلكيga waa walaashiinu Macayman maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno walaalaha cayilka iska ridaya insha Allah waxyaabo lagu rido gurigeena inagoo jooga dadka qurbaha jooga dadka Afrika jooga insha Allah marka ugu horeysa halkan waxaan ku soo qaatay celery seed saad u arkaysaan waa miro yar masha Allah miraha celery seed la yiraahdo waa caleenta dhaadheer celery-ga masha Allah miraheedu weyn aad u fiican tahay dadka la faxanuun kale dadka macaan kale dadka ma daragta arthritis kale dadka inflammation kale iyo dadka doona jirkooda inay dhaqaan maadaama cayilka hadlayno jirka ayay dhaqaysaa bahashan lafahaaga masha Allah strong bay ka dhigaysaa haddaad haysatid anxiety xanaaq badan iyo waxyaabo ku keena cayilku masha Allah way ku fiican tahay dadka haysta kaliyo kale dhibaato ku haysto kale aad ugu fiican tahay haddii caadadaada dhib ka qabtid oo kale aad bay kugu fiican tahay masha Allah lama soo koobi karo dabshiidka caloosha kale iyadna way u fiican tahay masha Allah dhikarka u fiican tahay immune systemkaaga oo kale masha Allah way fiicnaanaysaa immune systemkuna waa muhiimada ugu fiican qofka hadduu weeg loo sameynayo iyo metabolism labadaasina waa u fiican tahay masha Allah lagama sheekeyn karo midda kale aan rabo inaan ka hadalno waxa weeyaan waxa fennel seed iyo bahashan beerka xitaa way safaysaa beer xanuun haddaad leedahay amba dhibaato ku qabtid way safaysaa masha Allah hawday mala'aan fennel seedka waa tani caruurta la siiyo markay constipation gayin iyo markay caruurtu shumayaan oo kale waa la siiyaa fennel seedka waa cambaarka lagu daro aad u fiican tahay waxay haysataa calcium fara badan iron waxyaabo badan bay haysataa masha Allah lagama sheekeyn karo dabshiidkana waa fiican tahay caloosha marka constipationka oo kale waa u fiican tahay iron teeda iyo masha Allah xitaa waxa u fiican tahay dadka afka uraya oo kale waa u fiican tahay dadka asmada oo kale waa u fiican tahay fiberkeeguna masha Allah fiber fiican bay haysataa si caloosha isku hataagin kani waa koofigeena oo green oo wali la saloolin saad u arkaysaan koofiga waa ka marka la saloolin masha Allah kana waxa weeyaan koofiga waa maado aan inaba caadi ahayn oo hay antioxidant degdegna kaaga ridaya cuntadii fara badneed aad u xiisaysayna masha Allah waysid cholesterolkana masha Allah la dagaalama blood pressure-kaaga si fiican buu masha Allah وفعنا هذا ذكر برابرشر كوا عند ما شاء الله لقى شاكين كرا كولي حتى دون السيدين تقول جاك كثير كعنت سوق إن شاء الله سيدا ودك دك بدن كانوا الشجر كان هذا نتسو والشجر فائدة بدن أو دبيعية وأنا كصدر كيسين ما شاء الله نرجع إن شاء الله والسكر طبيعية والسكر عن constipation كو كينين ويغلوس كانوا أوفيعان ما شاء الله mineral بدن هيثتا ما شاء الله metabolism هيثتا ما شاء الله مسكلة دنا أوفيعان ما همدي constipation كلاجة قاعدة هذا أوفيعان تسكرتن لقى مديرنا يا ما شاء الله وحكى له حكى كويس سنة وحبك عدد يدن دنا مرنا بني لبي وما شاء الله أساسه كل بيكو ديران بالله دقيقة ذهبينكي إن يكون ملان توادرتين يدو بربورن حتى دوني سيدنا يدو بضاعة ayaad soo iibsan kartaa sidii aad jeceshahay xabag cadaadu waxaad sameynaysaa biyaha jirkaaga ka saaraysaa number 1 aad u fiican tahay masha Allah lagama sheekeyn karo akhwaati intaas ay inagu filan adigoo cuntadii masha Allah iyadan laftigeega aan ka deyrinayn inaanu bedilno laakiin tan dadka Afrika jooga wada helayaan taan rajeynayo masha Allah waa wax wada yaala sokorta dhib ma leh haddaad weydaan sokor la'aan waa ku cabi kartaan way sokor looma baahno masha Allah waxaan u tusay kar waa laga yaabaa inaan wadanka inaad ka heli weydaan xabagta wad helaysaan weeglooska waxaan oo dhan wad helaysaan masha Allah marka in cayilkii waxa la rabaa qofka bini'aadanka gacanta isku qabto bahashan waxa weeyaan jakarina waa la yiraahdaa saad warkaysiin way magac badan tahay daisy gurna waa la yiraahdaa waa malab waxaan u jeedaa waa sokor maheen magac badan masha Allah aadna u fiican macaanadan waa laga samaystaa waxay aad maadada ugu tahay rich amba masha Allah ku fiican tahay mineral badan bay leedahay fiber bay leedahay masha Allah sadarteed maaha wax constipation ku keenaysa insha Allah hadaan ku tuso wax faada haba yaraatee male soo arkaysid ingredient zero fat waa arkaysaa sida ay tahay waa sugar dabiiciya masha Allah wadaagtaa marka shayga hadduu dabiici yahay akhwaat aad u fiican yahay wuxuu faa'iido leeyahay weeyaan inaan isweydiino waxaasuu faa'iido leeyahay haba yaraatee waxa la doonayo kaliyaata inaan shayga ku cayilayn masha Allah inaan isweydiino inaan ku cayilayn insha Allah faa'iidana ka helaysid waliba waxa weeyaan maadadan
waxay haysataa copper wax la yiraahdo. Copper-kana wada ogtihiin celery-gu waa waxyaabada aad ugu qaalisan. Waxaa jira haddaba aan tusayo dadka macaanka kaliyaha xanuuna ee sokorta loo diiday, dadka macaan kale ee sokorta waxaan u jeedaa milixda loo diiday raalli ahaada, ama dadka dhiikar kale milix dabiiciya ayaan tusaya celery-ga laga sameeyay. Celery-gan waa laamihi dhaadheera oo la qalajiyay oo milix laga sameeyay. Saad arkaysiin waa salt waa milix. Waxaad ku dul darsanaysaa cuntadaada. Way ka fiican tahay milixdii kale ku dhibaysay markaa dadka milixdu dhibto oo cuntada loogu dari karin. Waa wax dabiiciya, waa xawaash la qalajiyay weeyaan, maaha milix. waxa weeyaan celery-ga dhaadheer oo la qalajiyay oo laga sameeyay weeyaan. Saad ogtiin masha Allah faa'iido badan u leedahay dadka. insha Allah isku daya markaas haddii aad markaa tahay dadka milixda loo diiday, tan aan kugu advice karinaya insha Allah. way ka fiican tahay kuwa kale cuntada ku dul daadsan kartaa aad u wanaagsan tahay insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wixii aad fahmi weydaan insha Allah way soo weydiin doontaan. weight loss-ku waxa ugu sahlan aan samayn karno, cuntadana qofku uu iska xadidi karo. waxyaabo badan waxaa jirta cuntada kaa jaraysa ama macmacaanka kaa jaraya oo loo baahan yahay qofka bini'aadanka inuu naftiisa uu wax ka qabto uu isbedel keeno. haddaba malaaqadahan waa teaspoon iyo malaaqadii xawaashka labay kala yihiin. koofiga waa teaspoon kaasaad u isticmaalaysaa, xawaashiyadana waxaad u isticmaalaysaa qaadadana loogu talagalay xawaashiyada. waa kaas inay kala yareen waad u jeedaan. marka qiyaasta mar walba ku khaldamin insha Allah. biyaad ku radsanaysaan koob weyn oo saan oo kala ah. hadda habku taagan kanoo buuxa ayaad alaabtan ku qadsanaysaa masha Allah. haddii aad xoog cayilkaaga u badan yahay 2 jeer baad maalintii cadaysaa. haddii kalena hal koob oo kanaad samaysatay iyo hal koob oo waxa weeyaan xabag cadaada ayaad cadaysaa. masha Allah lagama sheekeyn karo. xabag cadaada 2 jeer baad cadaysaa habeenkii markaad seexanaysid iyo subaxii markaad toostid. tanna waxa weeyaan masha Allah hal mar baad qaadan kartaa. cayilkaaga ku xidhan tahay. waxaan haysanaa group insha Allah walaalaha daneynaya insha Allah maadaama Ramadaankii baxay insha Allah waan caawinaya. welcome insha Allah. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. insha Allah waxaan rajeynayaa channel-kana sii share gareysaan walaalaha kale ee u baahan iyaguna inay iscadeeyaan si u arkaan. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad igala socon doontaan xaggaas waxyaabo qaarnaad ka arki doontaan insha Allah. assalaamu calaykum.